waqooyi bari Kenya maanta ma aha dhul keliya oo abaar haleeshay waa goob marag u ah burburka damiirka hoggaanka waa meel ay ku qalashay kalsoonidii shacabka kuna gubatay aaminaadii loo dhiibay hoggaan loo dhaariyay inay dadkooda badbaadiyaan balse doortay inay ka ganacsadaan masiirkooda abaartu waa imtixaan alleh balse musuqa waa faldambiyeed bini'aadam roobka hadduu daaho waa qadar laakiinse gargaar la lunsado waa khiyaano maanta geelii ayaa istaagila carruurta waa ooyayaan carmalladuna waa aamusan yihiin bukaankuna albaab xiran ayuu la hadlayaa su'aasha waa mid culus yaa cunay wixii masaakiinta lahaa yaase ka aamusay markii abaartu isu beddeshay xasuuq haddaba qoraal si xooggan u gelgelay garashada bulshada ayuu baahiyey madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Rigathi Gachagua kaasi oo si aan gambasho lahayn uga hadlay xaaladda murugada leh ee ka taagan waqooyi bari Kenya Gachagua wuxuu cadeeyay in hoggaanka uusan ahayn fursad lagu hodmo balse uu yahay amaano quduus ah oo lagu badbaadiyo naf iyo sharafta bini'aadanimo isagoo eraya xanuun xambaarsan adeegsanaya Gachagua wuxuu sheegay in abaartu ay gaartay heer ay xitaa geeli oo ahaa astaanta adkaysiga ay u liicayaan harraad iyo gaajo wuxuu isweydiiyey haddii xoolahaasi alla ugu talagalay adkaysiga ay dhacayaan maxaa rajo u ah oo u haray dad aan waxba haysan sida uu qoraalkiisa ku muujiyey tani ma aha musiibo dabiici ah oo keliya balse waa natiijo ka dhalatay hoggaan doortay dan gaar ah halkii uu ka dooran lahaa daryeel dadweyne isagoo xiganaya digniin diimeed oo culus Gachagua wuxuu xusay in quraanka kariimka ah uu si cad uga digayo kuwa si dulmiga ah u cunaya hantida agoonta carmalada iyo ummadda isagoo adkeeyay in xil ciidan iyo hanti midna aysan ka badbaadin doonin maalinta aakhiro maalinta qiyaame ayuu yiri la isma weydin doona inta kursi ee la haystay balse waxa la isweydin doonaa inta dad ee la dulmiyay saaxiibkay dhageysanayo qoraalkan Rigathi Gachagua wuxuu ku soo aadayaa xilli gabanaha Mandera maanta uu awoodi waayay inuu cadeeyo halka ay ka baxeen lacago malaayiin shilin ah oo dawladdiisa ay gacanta ku haysay isagoo ka jawaabi waayay su'aalihii ay hordhigeen guddiga xisaabaadka ee aqalka sanadka halka dhigiisa Gaarisa oo isna cudurdaar ka muujiyay inuu hortago aqalka isagoo codsaday in dib loo dhigo kulanka uu la yeelanayo sanatarada walow sanatarada ay gaashaanka u durureen isku soo wada duube qoraalkaasi uu soo qoray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka ma aha hadal dabayl raacay waa qaylo ka soo yeertay caloosha dadka la ilaaway wuxuu digniin dab leh oo ku socoto hoggaan mooday in mas'uuliyaddu ay tahay lacago la lunsado su'aasha maanta ma aha yaa hadlay ee waxay tahay yaa ka jawaabaya maanta waa maalin la hadlo berina waa maalin la xisaabtamo taariikhdu waxba ma qorto marka laga reebo runta aakhirana laguma iloobi doono ilmadii daatay lacag la cunay waa caddayn ilimadu masaakiintuna waa markhaati